baarlamaanka aqalka sare markaan tagay cabdi qaybdiid iyo muusuud ay qabsadeen iyagoo dhahay daarood baatay ninkii nooga keen kursi la kala qarsan maayo سعيد عبد الله الدني مدحوينها بونتلاند ee raba in uu u taxabsiibto hogaanka filla Soomaaliya waa madaxweyne muddo 3 sano ah maamulayay wax ka yar 4 gobol oo raba inuu maamulo 18 gobol 4 sano ee soo socota oo ay ka jiraan 7 maamul mid ka mid ahna maamuladaasi uu yahay mid ku hawlan raadinta aqoonsiga wadanka madax banaan Soomaaliya hogaamintiisa Soomaaliya waa mid dib u akhrin doonta muddadii uu maamulayay Puntland kama hadlayno taariikh nololeedka Saciid Dani heerka aqoontiisa ay gaarsiisan tahay iyo wixii uu ahaa ka hor inta uusan noqon madaxweynaha Puntland ee warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa Saciid Dani ma la yimid hab dhaqan u suurtagelin kara damaciisa siyaasadeed ee hanashada kursiga yaala villa Soomaaliya marka loo eego xilhintiisa Puntland taariikhdu waa mid iyadu dib isu akhrida warbixintan waxaynu ku eegi doonaa waxqabadkiisii dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha haddii aynu ku hormarno dhinaca amniga madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani ayaa ku guuldareystay in hab maamul uu u xalliyo mashaqadii Boosaaso waxaa soo fargeliyay isimada Puntland iyo siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay Puntland iyo federaalka waxaa muddo bilooyin ah uu la dala dhacayay geenta agaasimaha isagoo uu magacaabay ee BSF xafiiskii uu ku shaqeyn lahaa waxaana dhacay dagaal uu dhiig ku daatay kaasi oo barakiciyay shacab muddo 20 sano ah ku naaloonayay nabad marka la eego dhacdooyinkii kale ee dhinaca amniga ugu waaweynaa ayaa waxa kamid ah 6 November 2019 wax yar ka hor inta aan xilka laga qaadin gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo waxaa dhacay dagaal dhexmaray ciidamada ilaalada xarunta baarlamaanka iyo ciidamada booliska Puntland waxaana dagaalkaasi ku dhintay 3 qof oo uu ku jiro qof rayd ah halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen dhanka siyaasadda Dani waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qof ku adag xukunka waa nin jecel in geed dheer iyo mid gaaban uu u fuulo meelmarinta go'aanadiisa xitaa haddii ay qalad yihiin waa nin ay ka go'an tahay inuu iska hor wareejiyo cid kasta oo ka hor timaada siyaasaddiisa waxaana u sii dheer dulqaad la'aan muddadii uu maamulayay Puntland lagama soo warin wax tanaasul ah 7 November 2019 gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo ayaa xilkiisii waayay kadib markii xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay diideen in xasaanada ay ka qaadaan Awil Xasan Daad oo su'aalo uu ka carooday weydiiyay madaxweyne Dani madaxweyne baadaaba adiga khilaafka adiga madaxweyne ku xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray soo kuula in lama haboona adiga iyo madaxweyne ku xigeenkaagu inaad xafiiska banaysaan si aynu u badbaadino bulshadeena inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa maasantahay waxaan cadaynayaa inaan is-hortaag ku sameynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirsa inay dawladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kale maraya hadal mareed mudane hadalka mareed baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu aadimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasi waxaan leenahay mid amni xukuumadana annaga mas'uulka madaxweynaha u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fariista sirhaynta Dani ee siraha qaranka waa mid hooseesa marka loo eego hadal jeedinta Saciid Dani kadib markii hadallo uu sheegay in ay dhaxmareen madaxweynaha Soomaaliya uu goob fagaara ah ka sheegay waxaan rabaa maanta maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan publica u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya haddaan anigu been sheegayna waxaan rabaa inuu isagu declare gareeyo dhawa beentiis waa kulannay waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado
isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kaleeto wuxuu yidhi maxaa ka doonteen dadkaas anaa marti ay haydeen caasimadii magaala madaxdii Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin weliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah waxaan leedahay arkinina waa kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin maxay taas suuragal ma wuxuu igu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qeylqeylaya ciidan ayaan haysanaa wax naga qaadi kara wax ma jiro ani Axmedo waxaan ir ma doorasho rabta hadda wuxuu dhaaway khiyaamay ma doorasho rabta annaga ku dooranayna walaalo balgal haddaad bahasha ugu bugtid annaga ku dhisayna dalkan ka daa meesha ku wadi khatar buu ku socdaa habeen dhawadu soo wacay wuxuu yiri 17 September ma ogolaadeen marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday waxaan ir hadda wada sax la timid haddaan ku leeyahay maxaa mushkilo ku jirta hadii lagu dhiso dadka la socda arrimaha siyaasadda ayaa hadalka Deni ku micneeyay iska horkeenid dawladda iyo qabiilada reer Muqdisho colaad hurin ayaa lagu tilmaamay hadalkaasi waxaana ay dhaawacaysaa kaalinta nabadoonnimo ee Deni maadaama uu ku sifoobmay iska horkeenid marka la eego dhanka xuriyatul qowlka Deni iskuma wanaagsana dadka dhaleeceeya ama wax ka sheega siyaasaddiisa sanatarada aqalka sare ee awoodda uu u lahaa xulashadooda dhammaan kuma uusan soo darin qof maalin ay kala fikir duwanaayeen dhammaantood waa uu wada reebay halka kuwa kalena uu u daba joogo kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada maamulka uu hogaamiyo dhanka dhaqaalaha dhibaatooyinka dhaqaale ee Puntland lama soo koobi karo 3 sano ee la soo dhaafay balse waxaan tusaale u soo qaadan doonaa sicir bararkii fariinka goostay ee Puntland intii uu Deni yimid dablama shidan waxaa laga soo wariyay hooyo ka banaanbaxaysay mashaqadii Boosaaso waa hadal dareen xambaarsan oo ka tarjumaya dhibaatada dhaqaale ee colaadu ku lamaanan tahay waa halku dhig cabir u noqon kara heerka burburka dhaqaale ee ka jira Puntland marka lagu daro colaado sokeeye dabayaaqadii sanadii 2020 deegaanada Puntland waxaa ka macna beeshay isticmaalka lacagaha shilinka Soomaaliga waxaa sicir barar xooggan uu hareeyay suuqyada waaweyn ee Puntland suuqa Boosaaso ugu weyn ayaa albaabada la isugu dhuftay waxaana saameynta ugu weyn ay ku yeelatay dadka danta yar dhibaatadan ayaa la sheegay in ay ku timid hab maamulka Siciid Deni ee dhanka dhaqaalaha Puntland hab maamul looma marin xalinta sicir bararkan fariinka goostay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa looga maarmi waayay xalinta mashaakilka dhaqaale ee soo wajahay Puntland taasi oo muujinaysa in aysan jirin isku filnaansho dhanka maamulka ah marka loo eego xalinta mashaakilka ka dhasha sicir bararka madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa looga maarmi waayay xalinta mashaakilka dhaqaale ee soo wajahay Puntland taasi oo muujinaysa in aysan jirin isku filnaansho dhanka maamulka ah marka loo eego xalinta khilaafaadka iyo mashaakilkii ka dhashay sicir bararka maamulka uu majaraha u hayo Siciid Deni ayaa lumiyay kalsoonida bulshada reer Puntland marka loo eego xalinta mashaakilka Cabdiraxmaan Faroole oo mar madaxweyne ka ahaa Puntland ayaa tiro dhowr jeer ah ka soo dhex muuqday xalinta dhowr mashaakil oo weli qaarkood aan xal laga gaarin kaasi oo ugu dambeyn lagu abaalmariyay in mar kale uu qayb ka sii noqdo aqalka sanadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isku soo wada duubo su'aasha meesha taagan ayaa ah Siciid Deni ma u qalmaa hogaaminta dalka 4 sano ee soo socota